wiil dhalinyaro ah ayaa waxa uu guursaday naag hooyadiisa ka weyn. Sidee ku dhacday? Waa qiso xiiso badan. Inta aynaan muuqaalka u galin, waxaan kaa codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka si dhiirigelin noogu noqoto una soo badino. Mahadsanid. Qisadan waa qiso qariib ah. Waa koox arday ah oo wax ka barata mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala dalka Sacuudi Carabiya. Magaalada ay wax ku baranayaan waxa ay aad uga fogeyd deegaanka uu reerkoodu degan yahay. Ardaydii waxay toddobaadkii oo dhan wataan waxbarashadoodii. Marka uu isbuucu dhammaado, waxay aadi jireen maalmaha isbuuca ah ee fasaxa meesha ehelkoodu degan yahay si ay u soo booqdaan ehelkooda. Maalin maalmaha ka mid ah, mid ka mid ah ardaydaasi oo xaafadooda u socda ayaa waxa uu arkay islaan waayeel ah oo ari raacayso, ayadoo waqti arooriyo hore tahay. Waxa uu xaalkeedii ka waraystay dadkii tuuladaas, waxayna ku yiraahdeen maalin walba subaxdii ayay arigeeda raacdaa, galabtii ayayna soo hooyataa. Waxa uu weydiiyey aawe ciyaalkeedii. Waxay ku yiraahdeen adduunyada qof uma joogto, ciyaal, walaal iyo qaraababa. Wiilkii waa uu iska baxay. Waxa uu aad uga walwalay xaalka ay ku sugan tahay islaantaasi duqda ah. Maalin maalmaha ka mid ah, ayadoo arigeeda la jirta ayuu wiilkii u yimid. Waa uuna salaamay. Salaantii ayay ka qaaday. Waxa uu ka waraystay xaalkeedii, waxayna ku jawaabtay, aniga qofna dunidan iima joogo. Waxay ku sii dheeraatay inay xaalkeeda uga sheekayso. Markaas ayuu weydiiyey waxa ay hadda dunida ugu baahan tahay. Waxayna ku tiri, aniga dunidan wax aan ka rabo ma jirto oo aan ahayn inaan xaramka Alle tago oo aan soo xajiyo oo aan soo cumraysto. Arrinkaasna ma fududa, waayo aniga ma haysto wax muxaram ah. Wiilkii ardayga ahaa waa uu baxay. Waxa uuna bilaabay inuu aad uga fikiro islaantan iyo xaalkeedii. Waxa uu qalbigiisa ku soo noqnoqonayay, adduunka wax aan ka rabo ma jirto oo aan ka ahayn cumro iyo xaj mooye. Waxa uu ku fakiray in uu guursado duqdaas, kadibna uu geeyo xaj iyo cumro. Haddii ay ka soo laabtaanna iska furo. Sidaasna waa xalka keliya ee uu ku rumayn karay riyooyinkeedii. Subaxdii markii la gaaray ayaa waxa uu u tagay nin sheekh ah si uu u warbixiyo waxa uu ku fakirayo iyo waxa ay diinta ka qabto. Ninkii sheekh ahaa waxa uu ku yidhi, arrinkan waa arrin wanaagsan, ajirna Alle ha kaa siiyo. Wiilkii waxa uu u laabtay duqdii si uu fikradii ula wadaago. Duqdiina waa ay ku raaxday arrinkii. Sidii ayay sameeyeen. Kadibna waxa uu u geeyey xaj iyo cumro. Kadib waxa uu soo celiyey. Waxa uuna damcay inuu furo. Markaas ayaa waxay ku tiri, sidaas ha samaynin ee idhaaf, aan ku jiray magantaada. Meeshaad rabtana aad, xor ayaad tahay, laakiin aniga ha i furin. Waa uu baxay wiilkii. Waxa uu aaday jaamacadiisii oo magaalada ku taalay. Bilooyin ma uusan soo booqan. Maalin asiga iyo asxaabtiisa isla fadhiyaan ayaa asxaabtiisii weydiiyeen xaalka duqdii. Waxauna ku yidhi, kama warhayo, ayaan dhowba uma aanan tagin. Markii uu kaligiis noqday ayaa naftiisii ku yidhi, booqo. Waana uu soo baxay. Waxa uu yimid mislaantii meeshii ay degnayd. waa uuna waayay. Waxa uu ka waraystay dadkii tuulada. Waa ay ku qosleen. Waxayna ku yiraahdeen, islaantaasi mar hore ayay dhimatay. Haddii aadan rumaysanayn, guriga ay degnayd meeshaas ayuu ku yaalaa eegal. Gurigii markii uu yimid, waxa uu wiilkii ka helay warqad aad u adag oo ay isku duuban tahay. Xoog ayuu u kala furay. Waa dukumeent dhul aad u weyn oo ay ka dhaxashay in adeerkeed wiilkii inay ku wareejiso ayaa ay ku qornayd. Wiilkii dhulkii ayuu raadiyey. Waaba dhul ku yaala meel istiraatiiji ah. Markaas ayuu iibiyey. Waxa uuna ku iibiyey $malaayiin. Saaxiibadiisii ayuu u laabtay asoo taajir ah. Alle ayaa abaalmariyey niyadiisii saafiga ahayd ee uu ku caabiyey islaantaasi darteed. Intaas ayaan muuqaalkeena maanta ku soo gabagabayn doonaa. Haddii aad nala dhamaysatay, waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalka lana wadaagto asxaabtaada si aan u soo badino muuqaal noocan oo kale ah. Mahadsanid.